كلن كأنن عشرة فتاة وكلن كوبان وأنا قلت رجل لنا كسور دوينه كنت ميكروين كعصب حسبي وجددي يسووا إنه واحد ما دام يتبدل الدعام كل يتبدل كسور دعابة وأي وقت يسولي هاي حسبي ودنا مهجان عصبه أيام قصدي ومرتقات كي كهذا ده قبلهان مسؤولين تحسب وفي النور كل قدومي هنا ويمن دونا ونرى برعاه سجنوا ونسوينا وحن سكالي الله بيد كما هذا علينا كل جين مرتدك نوتيمي سيدنا أكسان دكتور جيبتين كلن كانوا جديد سوزهايدنا أن نتاكم مع مصنو أنت سواء ما هنقي كوان مركل بعده حوي هواء كل لو أعتقد سنة ودبي وح يمعدد ذلك برنامج كي وإذا هذا كم عشان تبدأ برنامج كي هواء كقيم قاعدة سياسة ده هواء حقوق هواء كل حقوق هواء كل الدنيا وتدين تنسيسونه إنه تعصمونه حين دمر هواء كيس لكن هواء كوين سياسة كقيم قاعدة أو كانتي هواء جوري جنا إنه دستان معمول كيو إنه سانكر عن ثلاثة لفتي كده وينو مهم هواء بدنه كرتيله أي أشراء أو ده الكلمة كقفانه خطيرة بحكم عيو ده هواء كاسون بيكوكت هاي ملك واحد ما ينتي إلى لبا كريه لبا دي حلقة يعني وجورني نظام كحسبية بدن وقف في وسرية قبتحل كدومي كغير حسبي ومرة كقارنا حلقي دويلة كدوميه مغنانا ده إذا بأكتر هيدو كدوميه حسبي كقولها تدا هاي وحويا وقول سويتها وين كنا وهواء بدنه iyada kamid ah madaba socdaa ku soo dhiiran doonay siyaasadda soo galaan waana wax wanaagsan inta ana waxaan leeyahay milgo haween ku dhiirigelin siyaasadda yimaadaan inay goobaha talada soo yimaadaan daad badan oo ku hambalyeynayna halkan iyo meel kasta insha Allah waan ku rajaynayaa inaad gaari doonto mustaqbalka qodobka saddexaad aan doonayna ka hadlo waxa weeyaan kullayaan واحد أوجدني ضل كثير تشريو ضل كين ويجتي حرر إيو constitutional crisis أيام هنود بيو دور بغير تشرين وتجددون أي هيدون نظام كحسبية ده يعني حكومة الله وحسيت كسر بيجمع صدق دورش وحويا دورش اللي مدحوينه هو يوم بديسنيد لبا كوريو لا تكمل شكوى تونات ليس كحسبية ده إيو دورش دي حسبية لو يجونا تونك سنوات بحال مرين قرشي سنين إنه يجونا حسبية فرانو يدور شدي قولتي ده ويجونا دستوري أو دستور كنا كنت هلاين سنة كدين مالن تلا دورته برلمان كعصب أي سنة كده بينيا برلمان كوا حن دورنا بيشي مي السنة كان سنة بيكده بينيا أبو قصوها وارد دستوري أو دستور كنت هلايو من دحلات كقولتي ولا سنة هالك برلمان كنت هاي saddexda doorasho sidii loo kala horeysiin lahaa ayuu madaxweynuhu soo fidiyay qoraal soo qoray guud baarlamaanka uu leeyahay qaabkii ay soo waafajinay saddexda doorasho ay bil lahayn keena waxa ka daba yimi yabaal in xisbigii talada inoo hayay oo doorashadii dhawaatanay awoodiisa in uu yabaal ku yimi doorashadii baqdin iyo isagoo aan diyaarsanayn ayuu eegaatay waxa dhacday in la soo galiyay in la yiraahdo xisbiyada la furaya iyadoo hawshii baarlamaanka taalay dib looga daba tagay taas waxaan u maleynayaa baarlamaanka horta la isla loo gudbiyay ayuu iyaga ka suganaayo dadwixii xashaaqaya ay noqon doontaa qolada iyada wadani ama taageerayaasheedana waxaan leeyahay mid baan leeyahay dalkan la yiraahdo antaaqna la yiraahdo Kenya 2007 ilaa imika laba doorasho dhacay laba xisbi oo way ku tartamo mid waxa la yiraahdaa ODM oo waxa la yiraahdaa hogaamiye la yiraahdo Raila Odinga ninna waxa hogaamiye nin la yiraahdo ina Kenyatta Uhuru Kenyatta labada xisbi labadii doorasho horeeyay intiina muddo ka kaaya dadka halkan jooga oo ogeedeen qabuuqiya haash ka dhacay
doorkii ugu dambeeyay imika markuu arkay awoodii xisbiga ODM inaad tahay mid aan la celin karayn wuxuu go'aansaday in Kenyatta in uu tanaasulo waana taariikhda markii ugu horeysay ee aan dal Afrikaan aragno ninkii madaxtinimada hayay uu xisbigii mucaaradka ahaa uu dhisayo taasina waxay aragtay diyaarsanaantii xisbiga ODM awoodii dadka qaabkii uu ku soo wajahayay doorashada dambe marka wuxuu arkay inaanay dameesha wax u oolay waa inuu isdhiibo ayay Kenyatta ku arrintu noqotay marka imika xisbigii dalkii la odhan jiray Kenya hal xisbi ma doorashada sanduuq loo soo dhigayay xisbiyadii kale doorashada marka Kenya ay u diyaarsanayn ee awoodii dadweynaha ay arkeen sidii bay baashi kaga laabteen innaga xisbigeedu talada inoo haya kulmiye baqadin iyo baqaw ka qabo diyaar garowgi iyo xisbiga wadani iyo awoodiisa ayuu horta xisbi barnaamijkan ururada furusta u soo bandhigay laakiin waxaan u sheegayaa in ama doorasho aynu galno baarlamaan ama doorasho madaxtooye aynu soo horeysiino ama aynu xisbiyo soo horeysiino waxaan taageerayaasha dadkayga u sheegayaa sanduuqii la soo dhigaaba inuu wadani buuxsamayo marka dowladda waxaan leenahay ama sanduuqa doorashada soo horeysiya madaxtooyada ama ka soo horeysiya xisbiyada mid kastaba diyaar baan u nahay waxaana waliba aan u filayaa inaynan isla gaadhayn tanaasulka ina Kenyatta uu sameeyay iyo baqdinta in isdhiibitaan uu ku iman doono marka aragto diyaar garow la'aanta xisbigeena talada inoo haya marka waxaan leeyahay taageerayaasheeda waxaan u maleynayaa in cid la tartantaaba aanay jiri doonin doorashada soo socotee sanduuqii maadaama inagu waynu samreynaa si kasta u dhigaamo